وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى isaga ayaa ajasheenna qadaray, arsaaqdeennana qaybiyey, wax kastoo dhacayana rabbi tabaaraka wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisa iyo xukunkiisay ku dhacayaan. iimaanka mabaadi'diisa asaasiga waxaa ka mid ah oo ruuxuusan mu'min noqonin ilaa uu rumeeyo in allah tabaaraka wa tacaala wax kasta uu horay u qorsheeyo u qoray, sidii uu u qoray ee uu qoondeeyey u qorsheeyey wax u dhacayaan. nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waxyaabaha dhacaya iyo ashyaada xukunkooda iyo maqaadiirtooda alla wuxuu qoray intaan samaawaadka iyo dhulalka la abuurin 50,000 oo sano ka hor. wakhtigaasaa wax walba qornaa. rabbina tabaaraka wa tacaala qad axaata bikulli shayin cilmaa. kadibna rabbi tabaaraka wa tacaala sidii uu u qoray bay wax u dhacayaan. markay dhacayaanna isagaa abuuraya, iraadadiisay ku imaanayaan. wax iska imaanaya ma jiro, wax iskeenayana ma jiro, wax cid kale keenaysana ma jirto. isagaa doonaya, isagaana abuuraya rabbi tabaaraka wa tacaala, isagaana horay u ogaaday, isagaana qoray rabbi tabaaraka wa tacaala. saas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay, allah tabaaraka wa tacaala ajasha isagaa idiin qaybiyo qadaray, arsaaqdana isagaa idiin qaybiyey. addoommadiisa ciduu doonuu adduunka siin, ciduu necab yahay iyo ciduu jecel yahayba waxbuu ka siin, laakiin iimaanka ciduu jecel yahay cid aan ahayn ma siiyo. sidaas daraaddeed risiqu waa qaybsan yahay, ajashuna waa qadaran tahay. waxa aad helaysiiyo waxa kugu dhacayana wax horay u qorshaysnaa wey. nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi markuu rabbi waxyiga ku soo dejiyey isagoo wiil dhallinyaro ah oo reer maka ah, carabtii jasiiradda degganaydii way garowsan waayeen. markaasaa waxay yidhaahdeen, inta wiilkan dhallinyarada ah lagu soo dejinayo waxyiga, odayaasha waaweynee maka iyo daa'if ka dhashay, labadii magaalee meesha ugu muhiimsanaa weye, odayaasha waaweynee caankee la yaqaanee magaca leh maa ilaahay waxyiga ku soo dejiyo intuu wiil yar la doonanayo. allah tabaaraka wa tacaala waa u jawaabay, wuxuu yidhi, ahum yaqsimuuna raxmata rabbika, oo ilaahay naxariistiisa maayagaa qaybiya. allah tabaaraka wa tacaala yastafi man yashaa, ciduu doono ayuu risaaladiisa u dooran, isagaana qaybta bixinaya. ayagu maxay ka yihiin? rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala, noloshooda annagaa u qaybinay, noloshooda annagaa u qaybinay, isagaa qaybiyey. midku doonuu ku yaray, midku doonuu u badin, midku doonuu qadin, midku doonuu siin, midku doonuu cisayn, midku doonuu dullayn. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay, arsaaqdooda iyo noloshooda annagaa u qayminay. markaasaan qaarkood qaarka kale darajaad ka sara marinay. xoolihii, caruurtii, hantidii, kursigii, awooddii, fahamkii, wax walba, cilmigii, allah waa qaybiyey tabaaraka wa tacaala. addoommadana kuma simin, qaar buu qaar ka sarraysiiyey. maxaa laydiin kala sarraysiiyey? liyattakhida bacduhum bacd